رحمة الله سيو صوماليا الله ورحمه دمان صوماليا حديثنا lagu socdo waxaan ka baqayaa dawladnimada inay intii reedan soo kasbanay inay faraha ka baxdo ayaa suurtagal ah kadib markii gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari qamiistii uu shaaciyay inuusan ku qancin hanaanka ay ku socdaan doorashooyinka baarlamaanka ee Koonfur Galbeed isla markaana hanaan ka fog cadaaladda doorashooyinkaasi ay ku socdaan isagana uu beedhaba isaga soo tagay markii uu ku qanci waayay habka loola dhaqmay iyo waliba kursiga uu tartamayo oo uu sheegay in iminka hanaanka doorashooyinkaasi uu ku wajahayo isaga uusan ku qancin cabashadaas ka soo baxday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa waxay keentay in guddiga doorashooyinka heer federaal ay go'aan ka soo saaraan warqad ka soo baxday guddiga doorashooyinka heer federaal oo loo diray guddiga doorashooyinka ee Koonfur Galbeed iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka warqadaas waxaa lagu hakiyay doorashada kursiga hoob 103 ee uu ku fadhiyo Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal waxaa lagu yiri waxaan mahad iyo bogaadin u jeedinaynaa guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed oo si hagar la'aan u wada howsha doorashada iyadoo maanta kuraastii doorashada golaha shacabka ee ugu horeysay ee ka dhacday magaalada Beedhabo haddaba iyadoo ay imaanayso cabashooyin la xiriira habraaca loo marayo kursiga tirsigiisu yahay hoob 103 iyadoo guddiga doorashooyinka heer federaal maanta ay ka shireen ayaa waxay isku raaceen baa la yiri in la hakiyo doorashada kursigaasi haddaba waxaan faraynaa guddoonka iyo guddiga doorashada Koonfur Galbeed in la joojiyo qabashada doorashada kursiga tirsigiisu yahay 103 ilaa amar dambe sidoo kale qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal waxaa lagu yiri amarka hakintan waxa uu soconayaa ilaa inta guddiga doorashooyinka uu ka xalinayo tabashooyinka ka soo yaray habraaca loo marayo warqadan ka soo baxday guddiga doorashooyinka ayaa waxay cadeynaysaa in la joojiyay in doorashada la guda galo kursiga uu ku fadhiyo Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari kadib markii uu qamiistii shaaciyay in hanaanka doorashooyinka ay ku socdaan uusan ku qancin oo uu sheegay inay u muuqato in kuraastii la boobayo haddaba markii ay soo baxday warqadaas guddiga doorashooyinka heer federaal ka soo baxday durbadiiba waxaa soo baxday warqad kale oo jawaab u ah kana soo baxday guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed kaas oo lagu shaaciyay liiska doorashada maalinta bari oo axada ka dhacaysa magaalada Beedhabo guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed oo aan aqbalin warqadii ka soo baxday guddiga doorashooyinka heer federaal ee lagu joojiyay in kursiga hoob 103 doorashiisa la guda galo ayaa soo saaray warqadan waxaana ay ku yiraahdeen ku socoto guddiga doorashooyinka heer federaal og guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka dadban sidoo kale og xafiiska ra'iisul wasaaraha ujeedada qabasho doorasho kuraastan oo kala ah guddiga hirgelinta doorashada Koonfur Galbeed waxa uu qabanayaa doorashada 4 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee aan shaacinay 19 November ee sanadkan taariikhda kuraasta la qabanayo doorashooyinkooda waa 28 November oo bari axada ku beegan kuraastan tirsigoodu yahay hoob 103 hoob 189 hoob 41 iyo hoob 42 ay soo saareen guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed in maalinta bari ah ay gudagalayaan waxaana muuqanaysa in go'aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ee ahaa in la hakiyo doorashada kursiga tirsigiisu yahay hoob 103 ee uu ku fadhiyo Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari in guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ay dhagaha ka fureysteen isla markaana maalinta bari ah kursigaaba uu yahay kursiga ugu horeeya oo ay doorashooyinkiisa ay gudagalayaan sidoo kale labada warqad ee ka soo kala baxay guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo guddiga doorashooyinka ee Koonfur Galbeed ayaa waxay muujinayaan in iminka guddiyada doorashooyinka isku khilaafsan yihiin hanaanka loo marayo doorashooyinka iyo qaabka loo xalinayo tabashooyinka soo baxay way socotaa maanta way dhabo doorasho ka dhacaysa kaliya waa wax la xiriira maadaama rag u tartamaya ay yiraahdeen xogaa waxaan ugu yaraa adkaatay inaan shahaadadii musharaxnimada helo bal in iyaga fursad la siiyo si ay u helaan doorkooda marka waa wax saxiid ku saabsan kursiga doorashadiisu way dhacaysaa wayna dhici doontaa gudoomiye Jawaari wuxuu ka dhawaajiyay in bataatan bal loo diiday warqadii uu xaq u lahaa ee dad badan oo hore uga cabanayeen way jiraan taas maxaa hore loogu xalli waarimaha noocan oo kala anagu inta badan waxaan fiirinaa sida ay wax u socdaan kuraastii horena qaar waa ku khilaafaadka aaday oo la xaliyay ilaa inta hadda wixii dhacay aan ognahayna waxada sida kan oo kala ah mayna soo marin maadaama uu Jawaari ka cawday in musharaxnimadii heerkeedii uu gaari waayay
in uu la saxo oo isagana fursad la siiyo waa muhiim waa inta waxa meesha yaala wax kale ma waayahay guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee koonfur galbeed iyagana warqad ay soo saareen ay ku sheegeen in biri ay qabanayaan kursigaasi bal soo khilaaf soo ka muuqda meesha oo guddiga doorashooyinka ku dhaxeeya may khilaafka u muuqdo waa gudiyadu waa gudiyo wada shaqeeya iskuna xiran iyaga ajandooda marka hore waa asaas ah warqaduna saad ogtahay taariikhdeeda shalay baa la qoray oo 26 bisha ahayd marka wixii hakinaya isla saxiidana waa isla shaqeynay marka khilaaftaas ma jiro in wax la wanaajiyo bayna waxan tahay maaha wax kale oo cilada doorashaduna way soconaysaa mana waa qismaysa waayahay kursiga hadda markay gudoomiyihii hore baarlamaanka Jawaari oo la hakiyay muddo cayiman miyaa ku qoran oo aad ku sixi doontaan maalmo kuma cadda ma justi waa in la xaqiijiyo dib loo fiiriyo kadibna marka la isla xaqiijiyo oo la isla ogaado sida xaqiiqdiisu tahay doorashadiisu way qabsoon waayahay gudoomiye guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa tahay cabashada kuraasta doorashooyinka way soo laabteen oo inta badan haday galmudug ahaan lahayd oo baydhaban hadda ka taagan tahay bal maxaa idin kaga qorshaysan in xal waara laga gaaro dhibaatooyinka taagan maadaama walaac laga qabo xildhibaanada golaha shacabka doorashadeeda horta hanaanka doorashooyinku waxa uu samaysan gudiyo iskaabaya oo mid walba shaqo gooni ah leedahay qof saan ognahayba doorashadan waxa ka qayb qaadanaya ilaa 27,700 oo ergooyin wax dooranaysa 1,200 oo kale oo ergada soo xulaysa murashaxiin 30,000 oo qof bay isla gaadhayaan qofkii marka wax cabasho dareema waa inuu la soo xiriiraa gudiyada gaaraan ama guddiga khilaafaadka ama guddiga heer federaal si ay halkooda wax ugu xaliyaan laakiin dib waxay tahay qofkii cabasho qabaaba warbaahintu tagaya warbaahintuna ma meeshii wax lagu xalinayo waa tahay waxa la leeyahay wali xildhibaanada golaha shacabka soo xulishooda iyo doorashadooda waxa gacmaha kula jiro madaxda maamul goboleedyada sidii looga bartay aqalka sare oo cabasho badan ay ka jirtay suuragal ma tahay in madaxda maamul goboleedyada ay ka madax banaanaado dhaqankii ergadii loo daayo in wax soo xulaan sida abraaca doorashadu yahay kuraasta golaha shacabka qabaa'ilka iyo gudiyada doorashada weeye waxa maamulaya maamuladuna waxay leeyihiin fududayn marka inta anigu wax dhaafsiisan ma ogi waayahay gabagabadii marka maxaad ugu baaqaysaa marka ergadii madaxda maamul goboleedyada dhaqankii dhammaan maadaama guddigii doorashada gudoomiyaha guddiga tahay baaqaygu waxa weeye horta xalka kaliya aynu haysanaa waa inaan doorashadan galno aynu nacaybka iyo cunfiga iska dayno wixii cabashaana gudiyada loogu talagalay ha loola yimaado halkaas lagu xalinayaa is-aaminkuna wuu wanaagsan yahay waayo cid ma jirayso garteedu ay noqonayso kor iyo hoos anigu gar baan leeyahay marka garta waynu wada leenahay barnaamijkana waynu wada leenahay marka waxaynu u baahannahay habraacyadii doorashada in iyaga lagu dhaqmo iyagana wax lagu xaliyo sidaasna horey loogu socdo aad baad u mahadsantahay gudoomiye